الله خاتم هذا خير نوغو خاتين دبرجوين تدبياش دان دبجالي دبرجوين تدبياش دان تدان دبجالي دبياش دان دبجالي دبرجوين تا إذا كدان دبجالي رياض تراب إن سود هذا حنا يسوي عنا أنيجا وحما قبطو إجا معها حمان لكن واسدان دورتي إن مسج بنقول بنا يا دقدقة ورتا رق يا حبل بدن أو يسوق قري ماسنجر يوصل دري يا جروبيو إن أيا واحد اللي سي غلط كوا بدن أو صومالي أقونين أما دي قانا أو حاجة حمان تو أرضه أيا كان جوابه يا هدي بروجيس لو بهذا وان بحينا سود وهذا رياض ترابه وحين كهضلنا إن رياض بجالي صوماليدن ربياش رياض بجالي وده هيستا صوماليدن دون تحقيق وده هيستا يعني كهضلنا أنت أنا برنامج كبلابين حال أري كلية أيان دولة الصومالي دولة فرماجو يو كامبرد كيسا أيان سينا ياش أرنت كوزابسن خلافك دبلوماسية صوماليا يا كينيا وحبضن أونان جعلين أيانو مقلينا ما استري مسمتها هاي صومالية شعب كصومالي لجيسرو جيبوتي أهو إرفلي أهو صومالي أهو صوماليو إن دولة صومالية أول أو وحلاسة حتى إثيوبيا مجرتو دولة وحلاسة حتى كينيا مجرتو شعب كو إذين تالا فرماجو مدن مدحوينه هدول نبكو هايستو شعب كاغا أشيغو وحنا حسيحين حولها ددوينها هبحين شعب كصوماليات دول مديد هذا حوليس ها إلى شضو وحبا حسيحين هدايتا هاي هانتي لأنه كباستيغا إيا أودا مليهد أدوكو بحيسو مليهد كينياي أدوكونا نون حريسو إثيوبيا نون حريسو أدينو نهاي ضد أفريكانا أون ملك لتغين دولدن أديكو قعنتكو هايسان ساد دونتان أدو يلستان وحي إذن لصحيحدان وحكا مجران سوغا قبل نماذا قاتو سوغا intay dawlad Soomaaliyeed oo cageedu ku taagan ay dhalanayso ama aad sameeynaysan hebel baa noo saxay iyo ku kooriya noo saxay iyo farmaajo waxaba kama soconayso anu malihi meesha male ama male dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo waxdiida ma jirto gacanta lagu hayaa sakuuradkiisa naftiisa farmaajo diid intaas ka baxay talan siiyo Somali إلا Somali ما نهاي ما ينصحين طبعاً سي هذا Somali ده قلبي Somali ده إثيوبيا Somali ده state كSomali ده جوكتاي دمانتين دقيستا دارودو دقيستا أبسمو دقيستا إن كل خبر رئيسه سود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايف كيجي أن أضياش دريد أو ياشي أبتياشي أصل كي صوماليا أن كوري دمبيليال باتيهين هلاقو جورا جيلكا هلا بحيو جيلكا قندراس قاتها در هلا بحيو جيلكي أوغادين أو كله هلا بحيو جيلكا درتا مركان لها صاحبي هيد إلا هذا نصيده أنا أن أجيدي وصح أنا وحن كهاللي رابطيجيو رادرو وحن كهاللي راركي رادرة هاي أصل كاي أصيلة هاي حلاشة كلية ها الدم بسومالي كجلين ده أنا سانو أقنا درس ولو إمك سكت وانا أبرتي الدم بجلين إن أيام نقطي أرامو oo waxay u tageen Axmed Abiy Axmed oo waxay yiraahdeen annagu hadaan dirnahay oramaanahay saas baan anigu u diidanaa dirtu inay noqoto oromo meel ku shiti ka sokaysa ayaan diidanaa oo xaqiiqii tagayaan ma ay ka haystaan war Soomaalida Ethiopia hadii saxsantiin maxaa waa idin raaci lahaa had yaani
soomaali adigoo ah oromo haddaad noqoto dee annahan kula noqonaya ama ka soo noqo halkaasay ahayd iyo arrin ku saabsan axmed shire oo shirki ka dhacay jigjiga ayaa laga dhigay shir daarood laga dhigay okay marka axmed baa isna wuxuu u hanjabayaa uu leeyahay anna shir diray aabay tolla ayay yaa ree hebelay haynu oromo noqonoy okay taasna waan diidanahay waan ka soo horjeedaa dadka soomaali ee jigjiga ku shiray waxay ahaayeen dad odayaal oo soomaali ah waa meeshaan ka lahaa may ugaaska ciise muu hadlo ugaasyadii dirad may hadlaan waa meeshaan ka lahaa marka la soo galay marka weli waan saxsanahay dir hadduu noqday oromo igama tegi karaan aniguna ma ogoli inay iga tagaan haddii uu soo noqon waayo soomaalinimada dee xaggeen kaga hadhay isagaa dhalabaya waan raacaynaa weliba haddaan nahay soomaalida etoobiya ma olaf baanu ku hadhaynaa kuma hadhayno warjid waaqow baalcaday weyteenow hadduu ogaadeen sanadkan xalaal noqon waayo oona laf dir baynu nahay dir baan raacaynaa mawduucan galo arrimaha la ii soo diray waxaa ku jira ka ugu xiisaha badan baan soo qaadaya dirta ayaa lay barayay okay walow aan maqli jiray dir iyo daarood bahasha maana xiisayn jirin intaan idka maqnaa lifekaygi wax badan bartay hadalkii u dambeeyey oo nin dhalinyaro ii soo diray ayaa ugu xiisa badan wuxuu yidhi adeer dirtu odaygii dir aha wuxuu dhalay 104 odaygii maxaanku raa xawaadla ahaana waa arrinta way isgeli laadahay odaygii xawaadla ahaana wuxuu dhalay 10 xawaadla u duceeyey dir odayga xawaadlii da'weynaa waxaan moodaya xawaadla inuu meel soko yahay wuxuu yidhi dirow waxaan kugu duceeyey 104 wiil ilaahay inuu ku siiyo yaa odhanaya xawaadlihii aan moodaya inay yihiin kuwa shalay dhashay afar ilaahay ha kaaga dhigo muslimiin 100kana gaalo allah kaaga dhigo yarkaas arrintu ii soo qore baa ugu xiisa badan oo 100 wiil oo dira oo gaalo ah ayaa Kenya gashay oo Ethiopia oo adeer Tigreegan iyo Oromadan iyo makuwiba ha oo odaygan xawaadlaha ah miyuunan meel soka soo gelin oo uunan la dhalan hawiyo oo aynan yacno wuxuuna la sinayn ciise muuse iyo habar gidir iyo may odaygii dirahaaba u duceeyey xawaadle 10 wiil ilaahay ku siiyo oo 10 ka muslina alla odaygu cadaalad sariira hadday arrinkaasi run tahay labada xukun odaygii direed baan raacayaa xalaal ahaa odaygii maxaanku dhahaa xawaadle walow uu ahaa weli haddaa idhaaha mise waxaan xageen siinaa mise qumay buu ahaa mise weli buu ahaa arrintaasi balhayn dabagalno xawaadle da'weynaa oo welisanaa oo haddana sida kale qumaysana okay xukunkii waxaan siiyey xalaasha ahaa odaygii dir ahaa alla nasabsanaynaa kaasaa ugu xiiso badan kuwa kalaan la wadaagay dhalinyarada daarooda waan murannay way dafireen waxaan ku yidhi war haddii 100 nin oo afrikaana oo afrikaba dhanba noqotay dir iska dhaaf Ethiopia ee nimankii daaroodka qaar baa dhalinyarada qaar baa igu xanaaqay oo war Tigray hadduu noqday dir hadduu noqday alxamdulillah hadday oromadii Tigray noqotay alxamdulillah dhinac waa alxamdulillah laakiin ma ogol yihiin oromo iyo Tigray iyo axmaaro ma ogoshahay inay dir noqdaan waan la noqonaynaaye oy Soomaali ahaadaan ma ogol yihiin hadday ogol yihiin diro daaroodow jaamacadda cagaaran anu waan gelaya okay kolkood reer trabaraha maxaynu ku nici haddayba xabashi oromo inoo noqotay dir oy maxaanku raha hadday doona gaalaha aadaan hadday noqotay maxaanku raha Tigraygii axmaaradii bijaaguligii kenyaatigii badda inagu haysta hadday Soomaali noqdeen iyagaaba saxsanba waynu kulli Soomaali waan noqonna laakiin batroolna waan leenahay dhulna waan leenahay dekadna waan leenahay
إثيوبيا أرنتها ما ويدينا هدي لهان ها وردارهم محد كديدي جماعة عقاران وانا سعي قضب كصدح كوني كو إنه نقولنا كل جين در لو أنا هاي مسدارهم وات كنا حيسان قاركين وكان حيسان هدي أحمر دي يا تجريجي يا صواحلي يا يوغانديسكي هدي در نقدان وأبتياشين قالوا بس كهذان تي إلهي نقول وين السيء يبط محينو مرة كفل نابا وين الشيء ويني هينو أفريقيا كبيرة هينو الصومال وضعهانو بترول كلام طبعا 8 مليون بنا هينو لا عنان حيبتنا هينو لا بيرتانها مسؤول وينيا هنو سوقنا موضوع عادي أحمد سودو أبو سلامي لأن خيار على كوجرا محمد سودو لبضان سعيد سودو رالي هذا ضد كما فيرية إن موضوع أنا صاقل وحويان شركة أرسمة كان عيا محلال با محرام با أنا أقول ما كلا صار كان هذا وحن ترفيو كقاضي يا هذا أقولادان ضد بان سوق جدبين برنامج بان سوق جدبين كوسابسان أنلف هرني سوق جدبي برنامج كوسابسان دول مديد أو سعيد كان كذا وين كمدي هاي أيان تصقال كينين حير را يعني انترفيو كقاضية انترفيو وحن كقاضية علم بارس يا عقل بارس عن سمايي باردل وذاقية أن صوماليا آخر أدري قبيلكم محوية هاي نحريستم حيت هاي وخدميها بيئة محوية هاي وقاس جراد ملاق بقر إلهي بقر محوية هاي أوكي صوبت خادوك نولها وربحي وحويان وقاس يا جراد يا ملاق كل وحيا هاي إنه أشقيان بيئة بشركة يا بيئة وحي أشقيان ماجورتيغا ربياش دان دبقالي نينكاستو أو صومالي هوغامين إيا قبيل كتوني هذا وحي أشقيان ربياش دان دبقالي aniga oo aan nin Soomaali ku hadlayo idin ka baxay idin ka bixi kareyn oo raaqaduka noolaha ah dar ilaahay baan u shaqeeyaa dawlad kama tirsani group kama tirsani xitaa jid waaqa waan ku qasbanahay mooyaane way hidoon bay ii fureeno kuwii kale iga soo xidheen xitaa ogaadeenkan absamaas ku nahay way iga soo xidheen oo waan ku jiraa oo sirtoodan ogahay oo mu'aamarada iyo khiyaanada yaan ogahay leeyna jiinka Soomaaliga waa isku mid reetolkay dirow حكمك عن ريد دونه حق إنه كحرية لكن وحنيدين شيء يا جنرال إن نك صومالي أو حناقة أو قبيل رادية وحكو قصبي وقادين تعرض باكو قصبي عيدين إنه بشتى قينه تعرض باكو قصبي إرياي تعرض مقدشو وانكور عسنا وانتهي شكي إن كذا بكفش المان هويه لكن إرياي دارود كإن لك رباشو أي مقايدها بروف ديان وأنكو فرحسنا أنا إلو حد يكون فرحسني لكن كبير كيسلويني ذا إيا دقون كدارود بان إبصدي أنا بان إبصدي أو دقون كمجرتين بان إبصدي أو دقون كأوغادين بان إبصدي لقاها نقو سقي هنكو يكاانو قبل كالصومالي ذا نينكستو أو صومالي أو حناقة أو قبيل كو أردا أو جروب رادية وحابري أو رشي أو نلف إلي واحد علي أونلف عبد الله توبي ينكستو أولاي صومالي واحد علي أونلف حدي دلع كلا كفير سنة إيجاب كل جيل داما هاسكو ورينا صدق كون يكو حروف تام جماعة عجاران قلب كبي أدا حلب حرام حلال كا صدق كون أي أونلف وتوا حرام صومالي أنيجا وان كلا أهاي هل شيء أو حلال وان كلا هاي قبيل كيجا إيه قبيل كا جذب بورسيجا محمد هو قبيل كا جذب بورسيجا جو إثيوبيا هل حروف أو حلال وان كلا وان لفوحي أمسيهين إني حروبان إنه قبل كانوا حروبه حبس كي خطنا هذا لكن جذب بورسي محربة جدوا عم حي ربان أوكي يا أي قبيل كصو صومالي يدور محربة وهذا وقوة الصومالي قلبيت دجن ما قرنا يحيي ربان أنا وان قرن واي قلب كجامعة عقارن ولا يهي أوكي ما دام أي هالنبر حلال هايستان أيان ولا يهي يجا في عن أوكي ربع كود أي وأمسيهين قميسي مستحضر الله يقب صدي مال أي الصعدان الصومالي ده إثيوبيا عقلي مجرو
wuxuu og yahay ku oranayaa ma ogi wuu og yahay okay labadan group ee Soomaalida ah ee dulmidiid la baxay iyo onalaf anagu dulmidiid waxaan u tala galnay Soomaaliya dhan laakiin kuwii leexiyay ee lagu shaabadeeyay ee jid waaqa ahaa sagaalka nin ee hoga horta generally dabihii ay onalaf martay waa kan dhalay dirka waa kan nin kasta oo Soomaali qabiilka baray waa kan intaasoo kun laayay waa kan dhaqanka Soomaalida ka bedelay waa kan gabdhaheeni loo kufsaday waa kan xabaasha in lagu tunto meedka keenay waa kan dirta geeyay dirdaba diroon shaqo isku lahayn inaan iminka baranno waxa keentay onalaf iyo inay ilay oo isdhalay okay daarado runta hayn isku sheegno ninka Soomaaliga anigoo absama ah oo kula dhashay baa kara marka tiraahdo inaga ogaadeena hadda wadankeena iska leh okay anigu waxaan ku noolahay kir baan ku ilaha of baan ku ilaha okay laakiin bishintu qaniisan yahay ninka gada buursi ka idoor ka sheekhaal ka baalcad bishintu qaniisan yahay intaas oo sano ayaa Soomaali dhagaha ka wasaqaynaysa nin Soomaali oo ogolaanaya qabiilkiisa forget about Ingiriisiga bixiyay magaca loo bixiyay loo bixinin okay halkan waxaan ku qoran xuruufta ama code number codeka numberka waxa weeyaan muddo dheer cilmi baaris aqli baaris aan ku sameeyay inta qurbaha wareegayay Soomaali oo dhan ba xayawaan ah laakiin laba qoys fitan ka timid ba Soomaali isku diraysa qabiilka ogaadeenka la yiraaho majarteen soo is xalaalay okay ma ka maqashaa majarteen yimay qabiilka ogaadeenka la yiraaho iyo qabiilka la yiraahdo Isaaqa oo laakiin magac fiican Somaliland u yar dhaama ogaadeeniya okay Somaliland Ingiriis bixiyay ogaadeenna Ingiriis bixiyay laakiin ogaadeeniya waxa la socota magacyo kale herargee baa la socota hawd ana hunda reserve area la socda maxaad ugu xiiqdeen kiini qabiilkiini horta marka u horeysa magacii adeerkay awowgay ma ilaha Cabdiraxmaan baa oran jiray magacan ogaadeeniya shaydaan ba u anqalay daan dabagaala socda lambar weeyaan Soomaaliya ay ka bedela ogaadeen qabiilka hanidi ka bedelno jaamacada cagaaran qabiil magacan ogaadeeniya waa shaydaan ba u anqalay iyo kuwa kale fara badan Somaliland waxa u anqalay shaydaan walow uu yar dhaamo oo Somaliland magacu xogaa soo jiidanayo ficilku laakiin eriyo labada qoys fitan ka timid ba Soomaali aakhira u dirtay una dir doonta Isaaqow ratolkayo awowgayo abtigayo seedigayo sodogayo durrada Isaaq anu waan ka baxay Soomaali anu ka bixi karin laakiin marka abdarsiin la yiraahdo qabiil nin absamaan ah markaan absama ilaahana waxaan la daahay Ciise Muuse ama ka siyar kir baan leeyahay oo laf uf baan leeyahay waan ka soo horjeedaa waan diidanahay haleedin helo kuwa Isaaqa oo Isaaqa aakhira Soomaali u diraya kir uf ku yiraah shirka diri dhabo haddii uu marayo dhabayaashii dulmidiid xirmayaasha iyo dhabayaasha onalaf waa nijaas fooqal nijaas hadday u shirayaan uu ka duwan yahay oo laga baaraandegay oo ikhyaar aqliyahan cilmiyahan naxariis Soomaalinimadu ku dheer tahay haddii ka soo shaqeeyay waa xalaal fooqal xalaal waxaad ku khaldanteen jid waaqa ka tagina kaxaysta kuwan xiiran waan ka reebaynaa jid waaqa oo dhan kaxaysta oo baalcad kaxaysta way dulman tahay oo weyteen kaxaysta oo gelimeys kaxaysta oo geri kaxaysta oo midyaha kaxaysta oo tumalada kaxaysta oo muusadiye kaxaysta oo hawiye kaxaysta oo xawaadla oo ka daweyn badir kaxaysta oo ina habaaray cid baa ka tagina hadday ogaadeen ka xalaasha kaxaysta hadday ogaadeen onlaf sorry hadday onlaf isa sixi weydo sanadkan
oyna madaxweynaha la shaqaynin oo madaxweynaha uga dambaynin oyna iska daynin hadda inaga ogaadeena okay inaga dhulka leh ayna iska daynin oyna isasixin oo hadday dhulka leeyihiin aynan muujinin dulqaad iyo deeq iyo sabr aynan muujinin Soomaali oo ogaadeenka inta xalaasha aan la tagno kulli waxaanu ku beelaynaa dir Soomaali baan nahay Tigraygu hadduu dir noqday dir maxaa noo diiday anaga hadduu Tigraygu ogol yahay dir noqdo oo Oromo ogashahay daaradoo maxaad ku diidaysaan dir baan nahay waanu raacsanahay haddii laakiin aad ka soo shaqayseen ood ka duwan tihiin oo mabda oo laf iyo mabda dulmidiid oo anu ka tirsanahay oo anigu ragii aasay aan ugu horeeyo naftayda ee maalkayga u horay tareen socdo oo ordayay ku dhaceen way afduubeen Soomaaliyay isgaarsiya inaan been sheegaynin sagaalka nin isoo qabta cilmi baaristi aan ku sameeyay aqli baaristi aan ku sameeyay naxariisti aan ku sameeyay intee ilaa bay nimankaasi bashar reeji ah oo ku faanayaan oo magaciisa ay qaadan oo negative soo xidheen ay soo caawiyeen miskiin dhibana okay caawa ma doonayo inaan soo gudbiyo sagaal nin oo xiiranayaasha oo dulmidiid hogaaminaya oo dulmidiidkii inuu maanta dirka ahaado ay hogaamiyaan aan ugu talagalay oo garab maray shortcut qandaraas qaatayaal sagaalka nin aniga oo jid waa ku abtirsanayo oo og sirtooda hay soo hor fariistaan ha ka jawaabaan hadday soo farsan waayaanna ilaahaygi miiriyahan sahlay baan ku mahadinaa bartaas soo gudbinaya khadar jigrow bashiir garaadow suldaan sugow sheekh axmed bashiirow barta maxamuud dayibow axmed obsiimo ku jira iyo inta kale la socotaay okay barnaamijkan soo gudbin doono next time aan soo gudbin doono ee ku saabsan dhibanayaashii imtixaanka aad ku dhacdeen yaan soo gudbinayaa bartanaan soo dhigayaa ma nimankaasi arrintaa ka jawaab oo ibeeniye oo evidence-kii keene mise hadday keeni waayaan hadday keenaan anaa xaal iyo xumayn bixinaya okay hadday keeni waayaan waxaan u sheegi Soomaali nin kasta iyo qabiil kasta waxa hogaamiya qandaraas qaate naxariis darre dhuntu ay furan tahay waxay rabeen inay Tigree gacanta ay u geliyaan Soomaali oo intii ina ilay dilay ka badan dilaan intii ina ilay dulmay ka badan dulmaan iyaga oo jees ah oo jid waaqa oo sagaal ah yaa doonayay Soomaali inay mar labaad iibiyaan dir oo Soomaali oo dhan majority-ga ah dee hadduu qandaraas qaatiis isagoo sidoo ku fikiray inaanu qabanno waa gaar laakiin qandaraas qaatow maxaad uga xanaaqsan tahay waa iga su'aale kuwa dulmidiid sheeganaya ee ka xanaaqsanow kuwa oo lafta ahaan jiray ee ka xanaaqsanow haddaad adigu dhaba khaldan qaatay oo tuug ahayd dee kuwa dirta ah ee tuugada ah oo ku fahmay baa iyaguna arsaba tegay dee hala iibiyo Soomaaliya hala iibiyo ama ka soo noqo oo nala fay dhabayaashii xaaraanteed qaaday hadda inaga ogaadeena ka soo noqdo xiiranayaashow dhabihii xaaraanta ahaa okay waxaan ku darayaa hal nin oo lafa halkan waxaa ku qoran halkan waxaa ku qoran code number 88 koorka ka soo bilaabaya oo laf aakhirka waxay baabiinaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddayna ra'yiga iska bedelin oo waxay sii baabiin ogaadeen absame en waa korbar oo laf waa baabiinta Soomaalinimada waa magac shaydaan u wanqalay okay mabda'a halkaas aan aaminsanahay hal laga bedelo waxaan qoray dulmidiid bilowgiisii markaan xiiranayaasha arkay reer G ama reer Jigjiga ama Jidwaaq oo saddex dhadhaar u kala baxay malaha 100 sano ka hor oo shaqo isku lahayn oo taqaanaan bartire iyo barre iyo iskuul
oo saddex magac oo isagana shaydaan u wanqalay 100 sano way kala abtirsanayeen taas loo yaqaanay ilaa hadda lama yaqaano ogaadeenkuna hadday maqlaan majority-ga inta xalaasha ah waa gaar waxay ku farxaan inay kugu dhawaaqaan ama iskuul bartire iyo bare haddaad tiraajido way xanaaqayaanba arbacad la xanaaqdaan dulmidiid xiiranayaashu 100 sano ay kala maqnaayeen ayay ku celinayaan dulmidiid kuwa hogaaminaya yaa ku qoran halkan code xiiranayaasha ilaahow sahal saddexdii dhardhaar oo ku guulaysanay inaan su keenno oo magacii khayrka qabay jidkii ilaahay jidkii ilaahay u khidmeeya ummadda oo kuwan doqomada oo lafka ka qabta tolka ummadda ka qabta oo caasimadda ku dhiga xaflad oo dir u yeedho anu dee markaan dir lahaa waxaan u haystay gadabuursi iguma jirin iidoori iguma jirin oo ciise iguma jirin bal ilmiga ilaahay waxaa igu rakaban maxaan ku rahaa dir gaadsan iyo arrimo kale iyo kuwa xamar degan iyo marka waxaan ka dalbaday oo isu keenay intaas oo group oo jid waaqa oo lacag diyaar la ah oon doonayno inaan kolka u horeyso oo lafla heshiino odayaal samayno siyaasiyiin samayno odayaal dhaqameed samayno culimo samayno arday samayno ururkii baan diyaarinay juudaan u bixinay juuda wuxuu ku ogyahay jid waa keliya soomaalihan u gudubno oo qolkii oo diyaara dhallinyaradii diyaara gabdhihii oo diyaara culimadu diyaara iyo tareenkii oo xawli ku socdo si xoog leh oo oromadii ay karbaashtay Ethiopia iyo Tigreega oo ilaa ka daadisay iyo annagii oo kacsan iyo annagii oo diyaara un bay tareenkii ordaya dalaq soo yiraahdeen kuwan xiiranayaasha inta ka hor waxa sameynayana waa cilmi baaris dhalinyarada la shaqeynayo iyo hablaha iyo culimada anu waxaan leeyahay ujeedo yaa kursiga ku booda yaa negatiin soo xidha yaa kiis soo tosha yaa ummadan aakhira u diray yaa Soomaali iibsaday yaa tuuga yaa dhabayaasha dhan dabagaala ku sifaysan ayaan anigu ugu jiray qolalka oo ii dheer 9 nin wiilka hal baan soo qadaya mar hore sheegay wiilka 7 sano ku xidhnaa ee agoonka ah iyo hooyadii iyo gaba walaashii ah Yaman 7 sano raga koob shahan uga waay koob maxkamaddu u dhamaystay inuu lacag baa lagu leeyahay qof uu dilay okay lacagtaan ka bixinno ayaan ka waayay wiil agoon ah ragaas xiiranayaasha ah ayaa dulmidiid hogaaminaya wax badan baa soo gudbin doonaa la socda haddii ilaahay nafta inagu daayeen next week ama hay soo fariistaan 9kii xiiranayow xagee dulmidiid ku dambeeyay koor lambarkan dhalinyaradii saddexdii dhadhaar Facebook isku caayayaan waa hal sano noodkiina kan oo la waxaan qoray 30 sano ka hor 88 Soomaali waxa aakhira u diraya ogaadeen iyo iidoor ilaahu naga qabo okay yaa Soomaali aakhira u diraya iidoorka inoo dambeeyo laakiin oo la fay markaanu madaxweynaha dooranay bahasha doqonnimadan ilaa soo afjaraan doonaynay okay oo la markay soo xarooto inaynu tashana inagoo dir iyo daarood iyo hawi iyo xawaale cabdiyo soo dhow xawaaleheeni wadana xawaalaha ugu dhow mara Soomaali iyo sheekhaashteeni ma reer qudubkeeni xanaaqsana talaxun inagoo dhan oo wadana inaan tashano oo Ethiopia la heshiino oo xaqeena soo dhacsanaan yaan u dabaaldegay aniga haddana dirkii baa kacay oo qurmoonkii oo laf ay keentay iyo dulmidiid haddana ka xanaaqay abtiyaal raalli ahaada labada arrimood midka tiina idinkaas ogaanaya oo laf iyo dulmidiid kuwa hogaaminaya inay ka xanaaqaan haday xitaa xaraamin yihiin xaq uma leh leeyno xaraami ba arka okay dirta xalaasha ahay haday dhabayaasha labada group kala qaadeen aad oo kale aatihiin xaraan fooqal xaraan ayaa tihiin idinka iska warhaya okay warkaagan gadabuursiga daawanaya maxamedow soo ogow ka soo hel gadabuursigan sabaroon igu ahaaya dirta igu noqday iyo iidoorkan
كفاني جري درتا إمك يدور يكون نقضي ما ديدني كسوهل أضياشا رقمات كأرسما كشرية ما كوانو كلا مسوا كوا حلال إذن كايسوك إذن كاسيقانا برتا بلشدة صادقة أوكي أرنت يدور كمركان كهضية أرنت يدور كمركان كهضية لكن وحن مدعوينها كرة لنا يا صومالي ستيت أن هذا الكاجي سوق رسي ميريها وانكو فرحي جود أهان هديتها سيدا أنو هدي هدينا سيدا أهين مدن مدحوينه وأنا أتكبر حساب أبولوجايز إن عمر عثمان مركو أرسمه كل شريي أو أنا لف كل شريي حالكاس إنك صاريت خلاف كانوا جدنا هاي أنا قاعد مثلنا أو أنا لف وقاعدين بولشيت ما مثل سيد قدال بدك كتلا سومالي ما أعرف كرتو ما مغلي كرتو أديو إنه عمر عثمان أو أنت سو هلاك يبقى أن ترسنا إنه إن النقطة تراهو برايم مينستر إثيوبيا تراهو أنا قاعد سومالي مثلنا أنا قاعد سومالي أم مثلنا لكن حق مليه أديو دمبيلة أوكي لبر حلال وطا أوكي أو نبابي أو خلدمي إن تراهو قرصنا وكسر تراه أنا سومالي مثلية أنا قاعد سومالي أو ولا سعنا أو سومالي أيام مثلنا أنا قاعد كحناقنا أو كورنا أنا قاعد مغلي كرين نما ما تشد مدعوينها هدي داد كاسي أي حلال يهين مدر مدعويني كان حلا حلو أو جيلكا ديرتا قندراس قاتها الله بحيو القاعد تسولو أووي أنجعلا حق ودقالمية دولمديد كا واكو صارن أووي كواسا دولمديدها واسا كون بساسين أو قندراس قاتها كو دولمديد بانه أوكي إن مدن مدحوينه سؤاشن جواب تيدان كاربا odayaal dhaqameed ka absamaan ka rabaa kumade daarood guud ahaan baan ka rabaa su'aashan iga jawaaba shirkii daarood ee lagu qabtay Boosaaso muxuu ahaa marka caawa qisadu waa idinka su'aashani daarood ku saabsantay shirkii daarood ee u dambeeyay ee lagu qabtay Boosaaso muxuu ahaa waa shir daarood okay ninkale Axmed Madoobe markuu yimid uu ilay uu doonayay xukunka inuu ku sii hayo oo ka soo duulay Kismaayo uu arsama yimid munanin muwaadina munanin ajaanib ahayn waa madaxweyne kuwani arsama tagay ee dirta ah xitaa dadka yimaadeen Muqdisho madaxweyne ma aha madaxweynihii Jubbaland maxaa geeyay maxaan ku rahaa arsama oo uu doonayay ilay inuu xukun ku sii hayo life baan soo galay maalinta labo waxaan ku yiri karbaasha dulmidiido karbaasha hadduu ka soo qoostay Jubbaland oo muwaadin Soomaali galbeed yahay oo tartan galayo welcome hadduu dulmidiid ku beerayo oo uu leeyahay in ilay area welcome haddii uu leeyahay in ilay hasii joogo karbaasha dulmidiido karbaasha haddaad karbaash weedaana ku mudaharada okay ninka madaxweynaha ah sidoo uu noogu sii hayaa gumaysigii iyo gumaadkii nisoo duulay waa hadda waan ka jawaabay ani xaggayga waan ka jawaabay waan diiday waxaan u sheegayaa dirta laakiin xaggiina daaroodow xaggiina absamow xaggiina ogaadeenow kaasi miyuunan ajaanib ahayn okay ninka leeyahay Saalax oo hadda maanta Jubbaland u tartamaya talan siinaya Saalax miyuuna nin Jubbaland ahayn maxaa geeyay Jigjiga nin kasta oo Soomaali ah sida absama cagdheere absama doqon uu Ethiopia u soo gelayo hadda la soco kolkii hore waxaanu diidanay Ethiopia inay Somali state inay Hargeysa lagu sameeyo maxaan ku rahaa faragelin Djibouti maxaan ku rahaa Boosaaso Muqdisho haddana ma Kismaayo ku soo birtay waa Soomaali way ma karaan laakiin ilay eriyisi ma aanan rabin inay soo farageliyaan
waxa fara kulul ku haya Somali state okay number 1 qoyska isaaqa Somali land ma aha isaaqa degan ayaa fara kulul oo siyaasadeed ku haya okay haddii ninka absamaha ama ninka daaroodka ee Soomaaliya ah uu Itoobiya iman karo oo madax ka noqon karo ka isaaq iyo ka Gadabuursi iyo ka Hawiye iyo ka Sheekhaal ee isagana ku dhashay Soomaali uu iman karaa shir uu ku qabsan karaa prime minister ka Itoobiya wala shir karaa okay ninka absamaha waxa xalaal u ah ee Itoobiya xalaal u ah dirka ana iyo Hawiyahana xalaal buu yahay ama sharciinu kala qoranno okay ama yaan laga xanaaqin on la oranin waa janib okay anu Soomaalinimada laga cararayo oo oramo la sheeganayo ayaan dambiga u saaray ninka Soomaaliga ah ee Soomaali Itoobiya gobolka Soomaalida waxa la yiri waa muwaadin horta inaga iyagu fair okay saraakiil naga dhigeen wasiirna naga dhigaan iyaga maxaynu iyagana u ogolaan weynay in Itoobiya ay wax ka noqdaan sharciga halka u yaala walow de gumaysiina haysto oo inaan inagu awood aaba lahayn laakiin dhibka Itoobiya sana ma kala saaro Soomaaliya dhibka xuduudka ku saabsan marka la ka hadlaya dhibka ugu weyn ee Soomaali soo foo saaray waa xuduudka waan si cadaynayaa 3 qolo mise 4 qolo ayaa ka faa'iideysan waan ka hadlay ama si hadii la fiiriyana waa sax waan ku farxayaa si hadii la fiiriyana waan ka naxayaa 3 qoys baa gift leh inay kulligood soo galaan Somali state oo ka faa'iideystaan oo absamac dheerahan iyo ogaadeenkanba minority laga dhigo Gadabuursiga lama kala garanayo huunu kuleeyahay Gadabuursiga Itoobiya iyo Gadabuursiga Somaliland waa isku mid lama kala garanayo lama kala saari karo wala absamac dheeran kala saari karin wala tigreeba kala saari karin idoorkana waa sidoo kale majority-ga lama kala saari karo okay iyo nimanka leeyahay dhul bahantaha iyo majeerteenka dhanka sokay afarta qolo gifti bay ku leeyihiin inay ka faa'iideystaan inay dhabayaasha dhan dagaal sameeyaan inay kulligood soo galaan gudaha oo hal eray lama kala saari karo waxaan nasiib ku lahayn ka absamac dheeraha ee ka yimaada Jubbaland luuqadiisa iska dhaaf Soomaaliga waxa garanaya Tigray iyo Oromo garanaya ka sheekhaashta ah loobiga waa la garan ka Hawiyaha maxaan ku rahaa degan u gaagaar Hawiyaha koonfurta waa la garan asharaafta maxay dhaha okay kuwaasi nasiib ma leh cid kasta garan kabajaanka garan daayeerka garan doofaarka garan 4 qoys oo ka faa'iideysta haddaad ka faa'iideystaan buruufta ogaadeenka ay soo afjarmayso oo Somali state oo xalaal aan noqonayno oo inaan ku biirayno Oromo iyo Tigray oo inuu Soomaali ahaanano absamaha iyo ogaadeenka xalaasha ah waan raacina bal oo aan laf meeshay ku ay ku dambayso okay laakiin waa inaan kala ogaanaadii ma oo aan lafta adiidatatiin ma dulmidiinkan xaaraamitatiin waa inaan kala ogaanaa hanu soo noqdo madaxweynaha iyo Saalix jigjigu jooga waa Jubbaland madaxweynuhu isku sharaxaya Axmed Muuse tartamaya waa soo dhaweyseen meel ka soo qorteen maana sheer garayn horta ka dulmidida la socdaan yaaban diidanahay midka dulmidida hogaaminaya Maxamuud Dayib baabay dhibaba kow waxaan diidanahay maxaa kii daaroodka dirta ahaana loo diidayaa hadduu xalaal yahay kan aan madaarka nahayna jijiro lagu soo dhaweynaya okay maana sheer garayn waan taageersanaa ninka inuu madaxweyne Soomaali state ka noqdo Kismaayo aniga shakhsi ahaan waan soo dhaweynaya waliba waxaan leeyahay jid waaqo waan u diiday inay gobolka madaxweyne ka noqdaan Somali state waa ka soo horjeeday okay waliba cid kasta ka soo horjeeday ilaa oo la soo dhiibto kan bajid waaqo warjid waaqo ninka taageera war Soomaali dirow ninka noo taageera warjigjiga way naga dhaxaysaa ninka Kismaayo kuwa joogo taageera ninka hal doorto waa ogaadeen bulsho kullee waa dabacad xun yahay ninka madaxweyne Jubbaland ha ka noqdo
saalaxow adiga waxaan ku leeyahay dhagax buur tag oo boorama tag oo hargeysa tag okay lambar xalaal qaado hargeysa tag oo soo siyaaro boorama tag oo jabuuti tag oo waxaa tagtaa maxaan ku dhahaa gaalkacyo tag oo garawo tag oo maxaan ku dhahaa muqdisho tag oo dhagax buur tag oo goday tag okay maxaa lagu garanaa aad boqortooyo tahay si soomaali kuu doorato haddaad jigjiga ka degtay sheekadan bedel oo soomaalinimo ku soo celi soomaaliya ninkan hala doorto bal ogaadeenkan waad aragteene absamacag dheerahan hawada barataane ninkani waa nin jidwaaqa waa nin reer wiilwaala okay maadaamuu jigjiga tegay boorama ha casuunto hargeysa ha casuunto kuwan xiqsane idoorka ha casuumaan bal soomaalinimo inuu raadiyo reer cabdilow iyo reer isaaqan xiiqsanow bal ninkaa idinka kuwa jooga kismaayana doorta oo dirtu iska yarnasto waxoogaa maanta xaggan jijiyeynu doorashada yaan ogaadeenka idinka qaadaynaaye xaggaas ugu shuban ninkaa okay adiguna haddaad siyaaratay jigjiga meelaha kale la siyaaro waa saalax hanu soo noqo madaxweynaha mudane madaxweyne kan staafkaaga iyo shaqaalahaagu soo dhaweynayaan ee madaxtooyada jiifa muxuu jiifaa waa nin ajaanibe hadda waxa weeyaan hadday xalaal yihiin iyo hadday xaaraan yihiinba dirta ku shirtay ardi sababa hadday xaaraan yihiin iyo hadday xalaal yihiin hadduu kii daaroodka ee xaaraamiga ah ku shirayo iyaguna ha ku shiraan oo jigjiga imaada okay marka madaxweyne haddii sheekadu tahay sidaas waxay mudan yihiin beesha direed odayaashu waxay mudan yihiin apologize inaad siisaan gariga gardarrada waxay mudan yihiin apologize aday kuu daran tahay oo kii haddii lagu heshiiyo nin kasta oo soomaaliya ku ogaadeenaho oo soo doontay xukunka inuu wax kaa shafto oo ka yimid kismaayo ama muqdisho ama hargeyso oo socda ayaa dhabaha lagu qaban okay ha bilaabin dhaba xun madaxweynihii baa tahay dembi baynu ka gallay ummaddan aduu kamaadan gelin laakiin tolkeen baa ka galay oo laf baa u horseeday oo laf baa dhibtay soomaali nin kasta qabiil una lahayn soomaali qabiil man yacno haddaynu fayownahay dhima jiro laakiin waynu wada jiranahay inagoo wada jiran iyo doorkii xalaasha ahaabaa xaaraan noqday oo qabiil taagan oo go-aya markaasaad leedahay ogaadeenaya xero shaydaan marka raabtigayo raalli ahaada madaxweynaha waan la shaqaynaynaa behalf of madaxweynaha raalli ahaada iga daaya uun oromaan nahay haddaad intaa iga daysaan ilan kan doqonka ahee daaroodka meeshu idinkaga raynayo kan tuugga ahee daaroodka meeshu idinka raynayo isagu oromaanahay male wakaa la soo taagan oromada waama laynayaa buu la soo taagan yahay war ha laynine soomaali ku faan marka kan soomaaliga ah ya ama daaroodka ah doqon baa iska ahaadee wuxuu idinkaga fiican yahay he proud inuu soomaali ahaado he proud inuu maxaan ku dhaha oromo noqonin kushuti haynaga dhaxayso haddii laakiin dee laleeyahay oromo way ogoshahay dee absame iyo daarood waxaan leeyahay doqomo meeshuu oromo ogolaatay oo tigree ogolaaday oo kenya ogolaatay inaga maxaan u diidaynaa war dir baan nahay aga dhulkan haynala qaybsadaan dadku aqli bay leeyihiin xitaa haddayna ahayn nimcaday rabaan iyo dekadahay rabaan kulligaan dir baan nahay okay xawaadlihii xitaa na habaaray dir weeyaan marka mudane madaxweyne baashahan kala saaro axmed shide iyo adiga markay noqoto adiga qodobka 3,001 aduu ku taageersan yahay hadduu axmed shide arrimahan wado gar iyo gardarraba nin la soo shaqeeyay ina ilay waa dir iska daa un baan u dhaafayaaye ma arki karo ma doonayo waa cabdullaahi etoobiya on doorto iyo ina ilay on doorto ila mid yahay halkaa waxaa ku gardaran dir iyo axmed shide mudane madaxweyne waa mustafe haddii ay noqoto adiga iyo nin kasta oo gruubkii ina ilay la soo shaqeeyey hadday noqoto dhaqan iyo xeer jajab iyo khibrad waan ogolahay axmed shide khibrad buu leeyahay waa dir waa laangaab dirtan imika waa la sameeye
هسكن ولا لانجاب كحجة هسكن ولا ذو هنعفينه هندول قادنه هينو إن أبصمه يجي هنكرباشنه سوشقي لكن ترتا هسكن عفنه هندول قادنه توانا قلعي لكن ما كان نقطة شخصي يا شخصي إلى يبان ديدي ترى كرترة داية عبد الله يتوبان ديدنا أوكي إنا شدنا ويجحون يا كواس لأنه باور كسر رأيه بجوجي وحقب تاني مجرو حتى قيس كيسون حقبا سلا يشجع مركا دو أحمد شدة عرضنا كتم بيو وأضياش اللوجوي وأنو كراعينا وأنو كسبور قرينا أحمد شدة وحالنا هلا قاعد حكمك لكن أضياشا قرية قرد الربع أبرجايس بيمضيهين أضياشا أبسمة قراد كلمية أضياشا وإلا سيا أبرجايس هذا كوايدين غاحي أوكي درينا هذينا أرام الرمين سوال لماذا يدير لماذا يدينكو هنقولنا أوكي you must grow in Somali time إن كلام كتاب كقري سيال كي حيرنا إلو بالمية هذي سوق روايانا برتنا صدقيا أوكي هذا ما نيكستو درو أما نيكستو يدورو يا يدين هربودية محرامي ما دبها حلاش عن الصعدة مثل دبها ده أنت بقال الصعدة اتحانكو وإن شاء الله next week يقرتي إلى هؤلاء السلام عليكم ورحمة الله.